waxaan u sheegayaa dadka Soomaaliyeed ee reer Puntland walaalaha waa dad bisil oo xog ogaal ah oo wax walba waxaan leeyahay ma mudnidin taariikh madow in Puntland ay ku qoranto ma mudnidin in la yiraahdo deyn cafiskii waa la fashilmay yaa fashiliyay Puntland lama qaadan kara taas lama aqbali kara waxaas waxaan codsanaynaa horumarka in siyaasadda laga saaro hal la kala saaro horumarka iyo siyaasadda waa in la kala saaro waxay xaq u leeyihiin waxay ku leeyihiin dowladda federaalka ee Soomaaliya inay ka helaan inay shaqo ka helaan ka badan 400 oo macallin ayaan diyaar u nahay inaan hawlgelino oo mushaar siino oo ay waxbarashada Puntland micno ku soo kordhiyaan laakiin waa la hor taagan yahay maxaa la hor taagan yahay dhalinyarada markaan cod ka rabnana ma waxaan dhahaynaa waad fiicantiin markaan shaqo ay heli lahayn ma shaqadan ka hor istaagayna dhalinyarada waa in loo ogolaado inay shaqaystaan dowladoodu inay shaqo siiso waa in loo ogolaado wasiirkii reer Puntland ee heer istaydaha ee halkan imaan lahaa ee deedna hay-adaha iyo mashaariicda qaybtiisa ka qaadi lahaa ma tagaysid haddii la yiraahdo see mashaariicda loo geynaya ma waxaa la rabaa in Puntland mashaariicdu ka istaagtaa la rabaa yaase mas-uul ka noqonaya lama aqbali kara waxaa ka sii daran intaa wada shaqaynta dowladda federaalka iyo istaydyada wasaaradooda maaliyadda dhammaan inta kale wasaaradaha maaliyaddu way wada shaqeeyaan marka laga reebo Puntland haddii in cafiskii ay kaadiga inoo taagan yahay oo bisha 9aad ama 10aad ama 11aad ee sanadkan ay tahay deynta dadka Soomaaliyeed 5 bilyan ka badan oo culays deymeeda oo dul saaraa adduunyada aan tuugayno inaga cafinayso ka warrama wada shaqayn yar oo shir la isugu yimaado oo dowladda Puntland la waayay haday u fashilanta ka warrama yaa mas'uul ka noqonaya shacabka Puntland mas'uul kama noqonayaan maamulka mas'uul ka noqonaya arrintaas haday dhacdo waxay noqon doontaa arrin taariikhda gasho taariikh madow ah bay noqonaysaa waxaan aynu iska dulqaadno deyntaas ceebtaas ha soo jiidina calaf la'aantaasna ha u soo jiidina ummadda Soomaaliyeed wixii aan soo sameeyno oo dhanna tacab khasaar ha ka dhigina shacabka reer Puntland waxaan rabaa inay taas ogaadaan arrintaas jirta waa arrin muhiim ah oo ay tahay inay ka dhiidiyaan oo ay diidaan in magacooda lagu fashiliyo geediga dheer ee loo soo galay deyn cafis